alhamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Maanta waxaan isugu nimid inaan warbixin kooban ka bixino xaaladda biyo-yari ee waddanka soo food saartay, taasoo ku timid sababo la xiriira roobabkii dayrta sanadkii tegay oo aad u yaraa ayaa waxay sababtay in guud ahaan waddanka uu ka dhaco biyo-yari iyo abaaro guud ahaan gobollada dalka badidooda, oo ay ugu horeyso gobollada sida maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. guud ahaan waxaa lagu qiyaasay dadka biyo-la'aanta ay hayso 1,100,000 oo qof, waase kala daran yihiin. xaaladda emergency-ga ee hadda taagan waxay ka taagan tahay qaar ka mid a guud ahaan gobolka Gedo magaalooyinkiisa dhan iyo qaar ka mid a gobollada Bay iyo Bakool. annagu waxaan abiil u dirnay warbixin iyo qayladhaan u dirnay hay-adaha ka shaqeyn jiray ama naga caawin jiray ka wasaarad ahaan biyaha, oo ay ugu horeyso UNICEF iyo UNDP. ilaa hadda waxaana soo gaaray oo kasoo jawaabay keliya hay-adda UNICEF oo kasoo jawaabtay inay biyo siinayso 4 magaalo oo gobolka Gedo ah, 5,000 oo qoys oo u dhiganta 30,000 oo qof. waxayna biyo dhaamin ka bilowday magaalooyinka Baardheere, Luuq, Buurdhuubo iyo Doolow. guud ahaan magaalooyinka hadda emergency-ga u baahan ee sidii degdega in wax looga qabto ay tahay waxaa ay kala yihiin Beled Xaawo, Luuq, Doolow, Ceelwaaq, Garbaharey, Buurdhuubo iyo Baardheere oo gobolka Gedo ah, Yeed oo gobolka Bakool ah, Buur-Hakaba, Bardaale iyo Qasxa Dheere oo gobolka Bay ah, Beledweyne oo gobolka Hiiraan ah. saa la socotaan biyo-la'aanta iyo qayladhaanta beryahan dhan way socotay. shalay annagu waxaan isugu nimid annagoo dhowr wasaaradood ay khuseysay arrimaha biyo-la'aanta iyo abaaraha, ay ugu horeyso wasaaradda biyaha, wasaaradda gargaarka, wasaaradda qorsheynta, wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda warfaafinta. waxaan shir isugu nimid sidii looga jawaabi lahaa. falanqeyn iyo dood dheer kadib waxaa noo soo baxday inaan hay-adaha la hadalno, baaqna u dirno. shir kale ayaa maanta ka jeedinay golaha wasiirada oo shir degdega lahaa. qayb bay ka ahayd arrimaha looga hadlaya abaarahan iyo emergency-gan. waxaana lagu soo gabagabeeyey laisku soo afgartay in qayladhaan loo diro beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ee wax ka geysan kara guud ahaan arrimahaas iyo biyo-la'aanta, si ay u caawiyaan dadka Soomaaliyeed ee walaalahooda. intaa kadib hadduu ilaahay caawana shir kale aan isugu imaan doonaa wasaaradihii shalay shiray annagoo ah, oo aan rabno inaan isu ururino wixii kasoo baxay shirarkeenii tanii shalay iyo kii maanta ee golaha wasiirada. warbixintan aan idin siinay ee dadka nambarka biyo-la'aanta ama qoysaska biyaha u baahan waa warbixin ay soo ururiyeen wasaaradda ay soo ururisay wasaaradda biyaha, wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha heer federaal, wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha heer maamul goboleed iyo clusterka ay ku midaysan yihiin hay-adaha iyo NGO-yada ka shaqeeya biyaha guud ahaan. aad iyo aad ayay u mahadsantahay.